ورحمة الله وبركاته. وحاضر معي waxaa laga rabaa inaan presentation sameeyo ama fotrack waxa jarmal loo yaqaan. Marka waxaan rabaa fotrackaas aan rabaa xaq inaan sameeyo bal inaan idinka bal hadda idinka afka horsheego sida kale tirsaaqad bacunaya hadii aan wax yar ka dibbo wax yar afka geliyo yaa laga xumaan. waxaa book aan doortay waxaa aniga presentation aan sameeyo waxaa la dhahaa tagi book. waxaa qortay gabar Anne Frank oo dhaho waxay qortay 1942 ilaa 45 intii u dhaxaysay 45 bay waxay ku dhimatay xarumihii kaamamkii dadka Yuhuudda la geen jiray ka mid ah la yiraahdo Belsenberg oo ku yaala Poland. dhibaatooyin badan ay soo martay gabadhaas ka mid tahay isirnacayb ay ka mid tahay inay dhuumato isqariso iyadoo kaligeed maahan iyada iyo familkeeda dhan. buugga uma aysan qorin hal nooc uma aysan qorin, waxay qoraysay maalin walbo wax dhacayo. saasay tahayna ma aysan qorin maalin walbo, waxaa laga yaabaa maanta inay qorto birina qorto 2 maalmood ka maqnaato haddana qorto 3 maalmood ka maqnaato qorto saas adii maalinle. gabadha waxay ku dhimatay hal sheegaa 14 ama 15 jir. asalkeedu caadi ahaan wuxuu ahaa Jarmal, laakiin diin ahaan markii la dhaho Yahuudiyad bay ahayd. luqadda ay ku jirto marka hore wuxuu ahaa Netherlands. buugga luqadda ay ku qortay markii ugu horeysay wuxuu ahaa xataa luqadda Netherlands, iyadoo markii dambe lagu turjumay afka Jarmal. hase ahaatee familkeeda hooyadeed oo la dhaho Edith Hollander iyo aabaheed Frank labadooda waxay ahaayeen dad Jarmal ah, laakiin isirnaceebkii Jarmalka waxay ku xukumeen inaysan ahayn maadaama ay diin kale ka soo jeedeen inaysan ahayn Jarmal. hase ahaatee wax badan bay isku dayeen inay dhuntaan walaasheed ka weyn ana oo la dhaho Margot Frank oo hooyadane baa waxaa usoo dhacday waraaqad oo loogu yeerayo inay ka qayb gasho kaamamka mid ka mid ah aado dadka Yuhuudda la geen jiray. maalinta waraaqadaas soo dhacday maalinta ku xigtay waxay galeen kuma sheegaleen familka Anne Frank kuma sheegaleen ay baxeen Netherlands ku dhunteen guri ilaa hadartaan la booqan karo oo ku yaala Netherlands bay galeen oo ku dhunteen. waxaa caawin jiray dad baa waxay ku caawin jireen inay helaan waxay ku mashquulaan iyo waxay cunaan iyo dharka ka dhaqi jiray. caawimad wanaagsan ee asxaab bay ku fakadeen. hase ahaatee ugu dambeyntiina isla asxaabtaas bay qoonsadeen oo markii dambena la dhahaa qof baa jaajuusay oo ka mid ahaa. waxaa ka mid ahaa asxaabtaas caawin jiray Nick Gies gabar la dhaho gabadha buugga soo heli doonto marka dambe. meesha familkana Frank waxaa kula noolaa famillo kale. Dr. Pfeiffer kula noolaa iyo naagtiisa Augustine. waxaa kaloo kula noolaa 3 qof oo kale. 8 qof ay ku ahaayeen adiga xarunta ay ku dhumanayeen. marka intaas yar maanta aan ka shaqeeyo damcay hadii aad series kan xogaa yar أفارح وغير عن سي شرح يا دارتي تفضل لايك شير سبسكرايب. Senin gibi zaten sen bizimkileri şey yap. هذا محلها Ben de gemiyi de seviyorum. Ben ولا شيء seviyorum. ولا شيء كمان سنة هذا بدنا لكن الحياة به أنا إذا جاب بدنا مو بس أخذنا إيه هذا حي كل ما هو ضروري هاي سيد روح بدنا يحضر سيد روح بدنا يروح صار حاسة أفضل التمثيل توم بكل مطالب ويا هاي لكن عقلي يقول قبل أسمع سوايا هاي وحنا عادي iyadoo ay qof waxay ahayd iyadoo waxay rabtay horta caadi ahaan inay noqoto qofka weynaato sharaftiisaan asal loo yaqaano horta waa ka waxyaabaha qoro way jeclaan inay noqoto marka hal waxay isleedahay macallimada marka dambana waxay lahayd macallimada publish waqti waxay noqotay والله horta qayb
aad iyo aad bay nolosheeda noola qaybsatay wixii dhacaya maalin walbo inkastoo inta badan buugga ay tahay calaacal iyo sheegasho ee dadka kale ka sheegasho u badan inta badan waxa ay samaynayso buugga intuu socdo dadku waxay ka aaminsan tahay ma ahayn dadka aamuso oo ma afka gaaban aysan ahayn qodobka dadkiisa banaanka soo dhigo oo sharaxo waan uga mahad celinayaa buuggaas ee qortay dadka soo saaray dadka turjumay inta daawatay intii iga dhegaysatay aad iyo aad baa u mahadsantahay haddii ay xiisaynayso buuggan seriiskiisa daartid inaan sheekooyin kale oo dheeraada kasoo sameeyo sharaxaad koodana hadda sameeyeen markaa haddii aad sharaxaad dheeraad ah oo kasii badan intaas inaan sameeyo waxaan rajeynayaa videogan inaad qiimin doonto like share iyo subscribe intana baad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now I am done with food. Yeah. رزاقتي waa dhamaystay waana risaaq video ugu horeeyo oo casual wuxuu noqonayaa video ugu horeeyo oo aan casual u sameeyo marka fadlan haddii aad ka heshay fikirkaas like share subscribe aad baa u mahadsantihiin meeshaan iyo maqaaxiyadan iyo afaarahan dhan waa laga dhamaaday bas I'm gonna leave now. I'm gonna put the button. Thank you, Mikhail. And now we're gonna leave. We're gonna leave the shit out of here. Out of here. It was a good day. It was a nice day. Nice day.